بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبرنا ويدينتنا what is a business ethics أما أنشح جناعسية وحنكوكي حكرنا business ethics أما أنشح جناعسية إنه يهي مبادئ ذا يهالباقي ذا هجاء أما جيهية هبرقن كجناعسية أما سيدين لو جناعسنايا هذا بقى أنشح جناعسية وحقو جيهية أما إنك جعنسية سيدي أنكو قاضن لهين قوانا ذا صحضة عدالة نكوص ليسن sidoo kalena faa'iidada u leh dhammaan dadka daneeya jiritaanka shirkadda ee loo yaqaano stakeholders sida macaamiisha, shaqaalaha, bulshada, milkiilayaasha iyo wixii la halmaala. Si aan iskula fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan aan dhahno shirkad soo saarta kabaha ayaa waxa ay ka wareeshay in mid ka mid ah supplierkeeda ama shirkadaha ka tirsan shirkadaha ay ka helaan agabyada ay u adeegsadaan soo saaridda kabaha inay ku shaqaysato caruurta laga yaabo inay yihiin caruur la soo xaday. Haddaba shirkaddii soo saaraysay kabaha ayaa waxa ay go'aansatay inay joojiso la macaamilka shirkad hoosaadkan ay ka helaan agabyada kabaha ama supplierka u ah. Waxaa intaa dheer in shirkadda soo saartay kabaha ay og tahay go'aankan ay qaadatay dartii in wax soo saarkeedu uu daahayo ama hakad uu galayo qarashkana uu ku badanayo maadaama ay joojiyeen inay la macaamilaan supplierkan. Waayo shirkadda soo saarta kabaha waxaa faa'iidada ugu muhiimsan in ganacsigooda uu ku salaysan yahay anshax wanaag. Gunaanad anshaxa ganacsiga waxa uu ku dhiirigeliyaa shirkadaha inay si wanaagsan u dhaqmaan, noqdaan shirkad lagu kalsoonaan karo, sidoo kalena sumcad wanaagsan leh. Waxaa intaa dheer haddii la joogteeyo adeegsiga anshaxa ganacsiga waxa uu inoo horseedayaa inuu ganacsigeenu gaaro horumar ballaaran. hadda kahor ayaan soo qeexnay micnaha stakeholders iyo supplier ee fadlan ka dhigo lifaaq hoose videoga. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تسندين وينو مركل هذه ربيضمو.